waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga aan aadka u jeclahay soo dhawaada qalbi furan iyo niyad saafi ah ku soo dhawaada maanta maxaan idin wadaa maanta idin ma wado routine maanta waxaan idin wadaa tala wadaag maanta walaahi eel dartiisa ta meesha aan videoda ku soo duubi jiray maan fariisan sidaan u dhameeyay routinekan idin soo duubay waad aragteen halkan ayaan soo fariistay bal ma halkan soo fariisiyay maanta halkan soo fariisiyay waxa weeye ciil ayaa soo fariisay li'annahu gabdho badan ayaa ooyaya gabdho badan ayaa cabaadaya gabdho badan ayaa cabasho wata gabdho badan ayaa niyad jab ku dhacay bedelkii aan caawin lahayn bedelkii aan garab qaban lahayn dumar ahaan anaga unbaa xaasid isku ah marka wallahi waxaan aaminsanahay horta haddaan dumar nahay anaga xaasid isku anaga cadow isku ah anaga dadka kale isu jibina li'annahu maanta naag oo la qabo oo guriga oo maanta marwo ah oo gurigeeda joogta ayadoo wax kasta maanta ku dul qaadanayso because qoyska waxaa leeyahay hal qof ayuu ku dhisan yahay badanaan hooyooyinka ayay ku dhisan tahay okay waxaa arkaysaa maanta hooyo wax walba inay u dul qaadato wax walba inay maxaa la yiraahdaa ay u samirto because waa hooyo somaha wax walba ay u samiraysaa waxay ka fikiraysaa ayatiinka dambe ee caruurteeda maxay ku sugnaan doonaan hadday ka tagto maxaa la xaajigeeda haddii maanta ay ka fogaato qoyskeeda ay burburiso caqabadaha ay la kulmi karto banaanka marka waxyaabo badan ayay ka fikirtaa intaysan tilaabadaas aysan qaadin ma fahantay ayadoo taas jirto baa jirta oo aad kala kulmi kartid okay hooyo markaa tahay markaad madax banaan tahay iyo markii lagu qabo laakiin aadan caruur haysanin waxaa jirta waxyaabo badan oo aad u dul qaadan kartid inaad u dul qaadatid caruurtaadii awgeed ayaa jirta okay laakiin ma ahan markii lagu dhahay dulqaadka waxaa jirta certain limit oo aad u dul qaadan kartid iyo waxaa jirta waxaadan u dul qaadan karin marka caruurta markay imaado waxyaabo badan ayaad ka fikiraysaa caruurtan maanta markaan qoyskeyga burburiyo caqabada ay la kulmi karaan maxay tahay kalgacayl aabo iyo hooyo ayagoo u baahan ayaad ka burburisay oo aad u diiday maxaa la dhahaa marmar adigii ayaa caruurtayga la wareegaya because adigiyaa ka maqan ma fahanteen adigana maxaa la kulmi kartaa mentally maxaa la dhahaa emotionally maxaa la kulmi kartaa maskaxiyan moogtahay waxyaabo badan ay meesha taalo oo miiska saaran ayaan egin ku fikirnaa runta hadii la isu sheego laakiin markii caruurta aysan meesha joogin labadan qof laba qof nolosha wadaagtay way isfahmi waayeen way kala dhaqaaqayaan ma fahanteen marka mid waa taas aynu fahanno laakiin bedelkii aniga maanta aan qof walaalkayga aan wixii la wadaagi lahaa dumar ahaan dhihi lahaa abaayo dulqaado ninkaada therapy raadsada maxaa la dhahaa quraan isku akhriya idinka sheekaysta fariista dhibkiina waxaad kala kulanteen maxaa la intay biyaha waxaa la intaysan kusoo gaarin baa la ismoosaa marka fariista intuusan idinku weynaanin fariista ma isdahaysiin ma fahanteen waxyaabo badan ayaa jirta oon dadka kale aan maxaa la dhahaa ka qarino naa gurigaada ka tag naa muxuu ku sheegayaa naa maxaa nin ugu waalatay yaa walaali maxaani horta koob shaax soo qaadan koob biyo isqabooji gabartan walaasha ah waxaa waalay oo maanta emotional damage trauma ku dhacay maxaa la dhahaa ay la waalan tahay oo ay la ooyeyso oo video intaas ka soo duubto halkan soo dhigayso waxaa weeye qoftan depression ahay number 1 she is stressed number 2 waxa adiga maanta gurigaadii aad maanta leedahay oo xaajiraali noqo sideen qoyskeena ku dhisana sidee saan ku dhahna wixii adiga ku waale ma ayadana waale saaxiib marka marun baa isu sheegaynaa mise been baynu isu sheegaynaa walaalayaal wixii adiga maanta ku waale wixii adiga gurigaada maanta kugu aamusiinayo weeye wixii maanta aad isku carfinaysid oo nadaafadaada aad ka fikiraysid oo guriga nadaafadiisa jagdhigiisa cuntada ayuu noocda u karinaysid bay ayadana rabtaa nolosha adiga ku jirtid oo adiga aad kasoo bixisay because of tala wadaaga xun aad siisay oo aad la talisay bay maanta lugaha ula jirta haddaa maanta saaxiib run saaxiib fiican ahaan lahayd gurigaadii ilaahayow ha kuu dejiyaa dhihi lahayd waxyaabaha qaar adiga aad samaysid aad la wadaagi lahayd hadday samayn karto ma fahante niyadda ayaa u dhisi lahayd okay because guri aniga run ahaantii waxaan aaminsanahay guri wuxuu ku dumaya waxaa waa laba sorry actually waa 3 qodob waa 3 qof number 1 waxaa weeye familka ha ahaada reer xididka ha ahaada familkaadii ma fahante oo dagaal kugu soo wajahay mise dhaga hadal mise af xumo okay midda labaad waa saaxiib xun maxaan ka wadaa markaa dhibkaada u sheegatidba oo the only solution mise the only way out ay ku siinayaan maxaa weeye ka bax iska fur saanyeel adigoonba waxyaabahaasito aadan gaarinba oo wax yar la iskhilaafa laga yaabaa maybe qofka waqti xun soo galay maybe eri aadan jeclaysan buu ku dhahay ma fahan badalka dhileed waxaas waa necbahay qofkii inuu isbedela in kala aad fiirin lahayd maxaa lagu booday iska fur maxaa ninka waalnay maxaasaan yeele oo mis fahanay marka qofka labaad waa qofka saddexaadna waaba ninkiyo ku qabay oo laga rabay inuu garab ku siiyo aad garab ka waysid
qofkii maanta inuu maxaa la dhahaa dadka kaa saraysiiyo uusan kaa saraysiin waayo ma fahantay oo bahdil iyo sorry hadal xun iyo wax yaabo ma aragtay loo joogin ku keena qofkaas. qofka saddexaad marka waa adiga lamaanahaagi. Okay, markaad haysatid maanta nin ku garab taagan oo ku jecel maxaa la yiraahdaa oo mar walbo raba jiritaankiina iyo isla joogiina maaragtay aad nolol isla wadaagtaan oo raba maanta inaad meel isla gaartaan ya haddaad haysatid alxamdulillah always ilaahay because sababta aan ku leeyahay ilaahay ku xamdi waxaa weeye number 1 labada kale oo dhinac kaa soo wajahaysa buu difaac kaaga noqonaya. haddii maanta reer xididka mise familka qof adig kuu dhow ku soo wajaho oo hadal bahdil ah kugu dhaho wax dirdiraad ah ay jiraan maxaa la dhahaa mar walba ku caayaya mar walba wixii xumaan ah mar walba madax kaaga istaagaya mar walba erey aad kiraahisanaysid oo qalbigaada necab kugu soo celcelinaya ma aragta oo asaga dhaha si sharaf leh okay qayli dagaal maahaya si sharaf leh oo ku dhaho jooga meeshiina na qofkan waa lamaanahayga waa xaaskayga ma fahanteen waa inaad xishmaysaan leh okay mar walba markii aad gardaran tahayna gardaradaada ku dhaha meeshan waad ku qaldan tahay ogow istuusi markii aad maxaa la yiraahdaye oo laga qaldan yahayna oo adiga garta aad leedahay gartaada dadka kaaga soo goyn kara qofku yahayba oo dhaha wax ma sheega qofkan waa xaaskayga ogaada xishmad ba idinka mudan tahay waana qaldan tihiin oo garab istaaga hiil iyo hooba labadaba oo diyaar u ah oo halgan u ah oo taagan oo mar walba horumarkiina ka fikiro markii dadkan ay kusoo aqabadayaan oo maskaxdaada ay yara buuqsan tahay uu ku dejiyo oo ku dhaho raali noqo way maxaa la dhahaa better days are coming ma fahante marka anigaa ku jecel anaa ku garab taagan dadka kale iska dhaaf wax ka fiican wallaahi oo bilaahi inaysan jirin qoyskaas qoys qurxoon caruurtoodii ataa farxadoodii aad ka fahmaysid marka caruurta waxbarashadoodiina meel fiican ay gaaraysaa because waa ilmo qalbigoodii degan waa ilmo maxaa la dhahaa maskaxdooda degan waa ilmo maanta faraxsan ma fahante because waxaa arkan kalgacaylka labada waalid ka dhaxeeya marka adigana waxaa noqonaysaa naag oo maasha Allah ah oo gurigeeda og oo maanta xaajigeeda og because waxaad og tahay xishmadda uu ku haayo ee meesha aad maanta aad ka joogtid asaga adigana waa inaad meel kasii saraysaa aad saartaa liannahu waa ninkan halkan ku ah oo ku taagan hiil iyo hooba labadaba uu ku taagan yahay maanta haddii meel lagaa soo wajahane oo meesha taagan yahay asaga ku difaacayo labada dhinacba maanta adiga haddaa qaldan tahay ku dhaha gabar waa gardaran tahay joog dadka raali noqo dheh meesha kasii wada xitaa marmarka qaar markaad isdagaashaan oo saaxiibka xun ku imaado ku dhahan iska furti maasaan yeeshid waad fikiraysaa because waxaad og tahay ninkan wuxuu adiga ku sameeyo waxaas yar inaad ku kala tagtaan maba ka fikiraysid hataa ayadoo basaas tahay marmar waxaa jirta aad saaxiibaad ka fikirina dhibkaada la wadaagtid liannahu wixiina idinka xaalisanaysiin okay wixiina idinka xaalisanaysiin maanta haddaa isdagaashaan waad fariisanaysiin mogtahay aniga waa kaa qaldanaa igraali noqo adigana qof kale wuxuu ku dhihi karaa anaa kaa qaldanaa raali noqo mise labadiina waad qaldanteen waxaa jira meeshan isfahan waa marka iga raali noqo saan kama wadayn saan ayaan ka waday dadkana hore u soconayn caruurtooda way korsanayaan laakiin haddiiba ninkii meesha joogay uusan heel kuu haynin uusan dhaga ku siinaynin uusan maanta garabkaada waxyaabo badan ayaa qaldamaya sax garateen maaha waxyaabo badan ayaa qaldamaya qoyskaas marka waxaa weeye burburaya ma dhigi karta laakiin qoys farxad leh qoys kala dambeyn leh qoys kalgacayl leh qoys xishmad leh ma noqonayo because qofkan waa qof maanta wax markii loo soo sheegay adig kula yimaada waa qof maanta waxaana jira kula yimaada adigii cidaad urdid ma haysid saaxiibkii haddaad urdid wuxuu ku leeyahay ka tag cidda familka haddaad u tagtidna adigaa doorata mise adaasaan lagu leeyahay ciddii xididkana haddaad u tagtid laba goorba been la isku sheegin cunugoodii ayuunbay ka fikiraan qofka ay dhaleen si walba uu ahaado saas ayay ku jecel yihiin ayay ku rabaan gar iyo gardaraba asagay la socon marka intaas waa inoo video dambe wallahi halkan maanta inaad soo hagaajiyo inta soo furisto wax sheego waaba ka gaari waa because ay qabtay gabdhahan oo wada ooyaya gabdhahan wada daqran gabdhahan oo la wada dilay oo halkan markay soo cabadaan Soomaaliyeey markay idin dhahaan oo aadan wax u qabanaynin oo aad ka sii socotaan iska daaya taas aniga ay lagu dishay iska daaya hadda wax u qaban karto qaba hadda u qaban karna ilaahayo qalbigeedu qabooj ilaahayo albaab u khayr qaba u fur dheh marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligiin dhammaantiin meel kasta joogtaan waa idin jeclahay waxaa idin leeyahay bye bye